ku dhawaad 30 meed oo ay ku jiraan Soomaali ayaa la geeyay isbitaal ku yaala dalka Talyaaniga kadib markii doontii ay saarnaayeen ay kula qalibmaday badda Mediterranean-ka. dadkan geeriyooda ayaa waxaa la sheegay inay saarnaayeen laba doon isla markaana ay ka soo baxeen Liibiya ayna ku sii jeedeen dalka Talyaaniga balse nasiib xumo ay doontii ay saarnaayeen badda kula qalibmatay. waaxda caafimaadka ee dalka Talyaaniga ayaa waxay sheegeen in dadkan geeriyooda ay isugu jiraan dalal ay ka mid yihiin Pakistan, Suudaan iyo Soomaaliya. waxaana socda gurmadkii u dambeeyay ee lagu baadigoobayo dad kale oo lagu tuhmayo in badda lagu leeyahay. waaxda caafimaadka ayaa waxay sidoo kale ay sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira dadka geeriyooday wadamada ay ka soo kala jeedaan sidoo kale sidii ay eheladooda ay ula xiriiri lahaayeen. badda Mediterranean-ka ma ahan markii ugu horeysay sidaan oo kale dad badan oo Soomaali ka mid ah ay ku geeriyoodaan. waxa ayna noqotay marin halis ah oo tahriibayaasha si aad ah u isticmaalaan. waxa sidaan oo kale horey ugu geeriyooday dad badan oo Soomaali ay ka mid yihiin. dadka tahriiba ayaa inta badan wadamadooda waxay kaga cararaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin amni la'aan iyo shaqo la'aan ayagoona doorbida in ay aadaan qaaradda Yurub si halkaas ay ugu sameystaan nolol ka duwan madii ay ugu noolaayeen. qaarkood ayaa u suurto gasha si nasiib ah inay kaga baxaan badda ayna gaaraan halkii hamigoodu uu ahaa halka kuwa kale nasiib xumo ay ku geeriyoodaan badda iyagoona hanti badan halkaasi kaga baxda. muddooyinkii u dambeeyay waxa isu soo taraya dadka ku geeriyoonaya badda iyadoo aysan jirin sabab la xiriirinayo. doomaha la raaco ayaa inta badan waxa loo sababeeyaa in ay yihiin kuwa aanan u qalmin tirada dadka ay qaadayaan. waxaana la sheegaa in dadka oo aad u tiro badan ay sabab ay u noqoto in doon ciriiri ah lagu guro tiradii ka badneed iyadoo culeyska aysan qaadi karin ay sababayso in doonta ay qalibmato halkaasina ay ku geeriyoodaan boqolaal ruux oo doonayo noloshii ay ku noolaayeen nolol ka duwan inay helaan. wixii warar ay ku soo kordho ee la xiriira dhacdadan muuqaaladeena dambe ayaa idinkugu soo gudbin doonaa mahadsanidin. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.